وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا دا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا دا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا دا معلمك بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu guda gali doonaa casharkeenii chapterkeenii noo sii socday evaluationka ee ahaa chapterkii shanaad ee dugsiga sare. maalintii ugu dambeysay ama form 4ka waxay noo joogtay oo casharkeenu inoo taagnaa inagoo ka soo hadlayna wax loo yaqaano migrationka. migrationkana waxaynu ku soo sheegnay waxaan idhi waa socdaalka dadku ay ka tegayaan meelihii residentiga ay ku ahaayeen deganaayeen ayna tegayaan meelo kale. sidoo kale waxaan ka soo hadalnay waxyaalaha sababa migrationka ayaan maalintii hore ka soo hadalnay. sidoo kale waxaynu soo sheegnay in migrationka loo kala qaybiyo laba qaybood oo aynu nidhi mid waxaa la idhahdaa internal migration, midna waxaa la idhahdaa external migration. sidaa markay tahay maanta waxaynu soo qaadan doonaa kii koowaad oo ah internal migrationka. internal migrationku waxa weeyaan waa isku socodka ay dadku isku soconayaan waddanka gudihiisa iyagoo aan ka tallaabin borderka ama xadka aan ka tallaabin. kaas ayaa la idhahdaa internal migration. internal migrationku is the migration within a country. waxaan odhan karaa waa socdaalka ay isku soconayaan ama dadku isku soconayaan waddanka gudihiisa ee aanay meel kale u tallaabahayn ama aanay borderka ka gudbahayn. internal migrationka waxaan u qaybin doonaa 4 qaybood oo kala duwan. 4 waaxood baynu u kala saari doonaa. 4taa waaxood mid waxaan odhan doonaa waa socdaal dadku ay ka tegayaan miyiga ay ka imanayaan oo ay imanayaan magaalooyinka. midna waxaan odhan karaa waa socdaal ay dadku meel miyiga oo ka tegayaan oo meel kale oo miyiga tegayaan. midna waxaan odhan karaa waa socdaalka u dhaxeeya dadku ay ka tegayaan magaalooyinka ay tegayaan miyiga ama dhulka baadiyaha. midna waxaan odhan karaa waa socdaalka ay dadku isaga gudbayaan magaalo to magaalo ama urban to urban. okay, halkaa waxaanu soo sheegnay ilaa hadda 2 qodob baynu sugnay. waxaanu idhi internal migrationka waxaa la idhahdaa waa socdaalka dadku ay isku soconayaan waddanka gudihiisa ee aanay ka baxahayn borderka ama aanay ka tallaabahayn. sidoo kale waxaan soo sheegnay anwaacda ama qaybaha loo qaybiyo migrationka ama socdaalka loo qaybiyo afwan internal migrationka loo qaybiyo ama socdaalka waddanka gudihiisa qaybahan u kala saari karo. 4 qaybood baynu soo sheegnay oo waxaanu idhi mid waxa weeyaan waa mid dadku ay ka imanayaan baadiyaha oo ay imanayaan magaalooyinka, iyo mid ay dadku baadiyaha u kala gurgurayaan isla gudihiisa iyo mid dadku ay ka tegayaan magaalooyinka oo ay tegayaan baadiyaha, iyo mid ay dadku isku soconayaan magaalooyinka gudahooda oo ah urban to urban migration. okay, halkaas marka intaa kaga soo gudubno waxaanu eegi doonaa waxa loo yaqaano ka ugu horreeya soo qaadan doonaa oo ah rural to urban migration, oo ah socdaalka dadku inta ay ka tagaan baadiyaha ay tegayaan magaalooyinka. okay, maxaa keeni kara dadka baadiyaha ah inay ka yimaadaan baadiyahoodii oo ay magaalooyinka soo gaadhaan ama ay magaalooyinka yimaadaan ayaynu eegi doonaa. muxuu yahay horta marka hore intaynaan qeexin, intaynaan waxyaalaha keena gudagelin rural to urban migration oo maxaa tahay, waxaan odhan doonaa waa the movement of people from rural areas to urban areas. waa socdaalka ay dadku ka imanayaan baadiyihii ay dabadeetana imanayaan magaalooyinka. kaas ayaa loo yaqaanaa maxay internal waxaan jeedaa rural to urban migration. kaasaa loo yaqaanaa maxay isku socodka dadka ee ka imanayaan miyiga iyo maxaan ku dhahdaa aanay imanayaan magaalooyinka. kaas ayaa loo yaqaanaa rural to urban migration. okay, maxaynu sheegnay marka? waxaanu sheegnay oo aynu nidhi socdaalka dadku ay ka imanayaan miyiga ama baadiyaha ay ka imanayaan ee ay imanayaan magaalooyinka ayaa waxaa loo yaqaanaa rural to urban migration. okay, maxaa sababa waxyaalahaas ku sababi kara dadka miyiga jooga inay magaalooyinka soo galaan oo ay baadiyahoodii ka yimaadaan? way fara badan yihiin, laakiinse bal aynu ka soo qaadana in yaroo kooban oo kuwa ugu muhiimsan ee buuggeennuna soo qaadanaya.
waxyaalaha keeni kara in ay dadku ka yimaadaan miyiga oo ay magaalooyinka yimaadaan waxaan odhanaynaa dhalinyar fara badanba waxay soo dhammaysteen leefalladii kala duwanaa ee waxbarashada ama tusaale ahaan kale dugsigii sare ayuu soo dhammaystay ama primarygii uu soo dhammaystay miyiga ka jiray dabadeetana wuxuu u soo doonanayaa magaalooyinka waxay u soo doonanayaan shaqo dhalinyar fara badan baa waxay u imanayaan maxay asbaabo shaqo iyagoo noocyadii kala duwanaa ee aqoonta ama waxbarashada soo dhammaystay ama iyagoo doonaya inay shaqo u soo raadsanayaan marka waxaynu odhan karaa to seek employment si ay dadku uga helaan shaqo waxaynu odhan karaa waxay ka imanayaan dadkii baadiyihii iyagoo magaalooyinka usoo doonanaya shaqo weliba dhalinyartu iyagoo inta badan shaqooyin usoo doonanaya magaalada ayay ka yimaadaan miyiga qodobka labaad waxaan odhan karaa ganacsato fara badan baa usoo guura ama soo dega magaalooyinka sababtoo ah magaalooyinku waxay leeyihiin high purchasing power oo inta badan magaalada wax iibkeeda ayaa aada u sarreeya waxaa laga yaabaa hadduu qofku meherad ku haysto meel yaroo iska tuulaa inaanu dadka wax ka iibsanaya iska koobayin sababtoo ah populationkii baa yar populationkuna waxyaalaha tradeka saamaynta xoogale kule ayuu ka mid yahay sidaa daraaddeed waxaynu odhan karaa ganacsato fara badan baa waxay uga soo guuraan dhulka baadiyaha ama miyiga waxay uga soo guuraan number one waxaa ka ah populationka oo yar sidaa daraaddeed waxay doonayaan inay dad badan wax ka iibsadaan waxay soo degaan dabadeetana magaalooyinka waa qodobka saddexaad waxaynu odhan karaa dhalinyar fara badan ayaa ka yimaada miyiga iyagoo soo dhammaysanaya leveleska kala duwan ee aqoonta miyiga ka jirta tusaale ahaan oo kale isagoo primary soo dhammaystay ayuu secondarygii magaalada u imanaya ama isagoo secondarygii soo dhammaystay ayuu jaamacad ama college u imanaya magaaladii arrintaasina waxay keeni kartaa inay dad fara badan xagga miyiga ka yimaadaan oo ay magaalooyinka yimaadaan okay waxyaalaha sababa migrationka markaan imika ka hadlaynay waxyaalaha sababa rural to urban migrationka waxaynu soo qaadanay 3 qodob oo muhiim ah waxaynu nidhi weliba dhalinyarta ha u badnaadaanee dad fara badan ayaa waxay ka imanayaan dhulkii baadiyaha ahaa iyagoo magaalooyinka usoo doonanaya leveleska kala duwanee shaqooyinka waxaa kaloo aynu xusnay oo aynu iyadana sheegnay inay dad fara badani uga imanayaan miyigii oo ay magaalooyinka usoo gelayaan aqoon tusaale ahaan oo kale ardayda dhammaysta leefalada kala duwan ee aqoonta sida ama primary oo kale ama secondary oo kale ama qaar waxbarashadaba la doonayay inay ka bilaabaan magaaladoo la keenay dad fara badan baa ama dhalinyar fara badan baa miyigii uga imanaysa si ay magaaladii wax uga bartaan oo u imanaya educational purpose u imanaya ama asbaab waxbarasho u imanaya magaalooyinkii waaweyne qodobka kale waxaynu sheegnay isagana in ganacsatadu ay ka soo guraan mararka qaar dhulka miyiga oo ay yimaadaan dhulka magaalooyinka sababtaasina ay tahay magaalooyinka waxa ku badan populationkii saa daraaddeed magaalooyinkii waxa ka dhacaya ama ganacsigiisii waxa ku imanaya high purchasing power bay leeyihin magaalooyinkii wax badan baa laga iibsan karaya halkaana wuxuu arkayaa ninkii ganacsada ahaa inuu ganacsigiisii ku kori karo okay halkaa waxaynu kaga soo gudubnay waxyaalaha sababa rural to urban migrationka waxa kale aynu eegi doona waxa la yidhaahdo rural to rural migration rural to rural migration markaynu leenahay muxuu yahay waa socdaalka ay dadka reer miyiga ahi isku gurguurayaan iyaga magaalooyadii ma gaadhayaan halkan oo miyiya unbu reerka ka guurayaa ama qofka ka tegaya miyiya waxa uu tegayaa inuu meel kaloo isla baadiyihiina kaas ayaa la yidhahdaa rural to rural migration It's the movement of people from one rural areas to another. waxa la yiraahdaa marka la qeexayo waa qofka isagoo ka tago meel baadiya oo u guura isla meel kale oo baadiya ah ama reerkiisa oo ka guura meel miyi ah oo ay deganaayeen oo u guura meel kale oo miyi oo ay degaan laakiin aan magaalooyinkii kala ahayn kaas ayaa loo yaqaanaa rural to rural migration maxaa sababa haddaba nomadism culture nidaamkan iska reer guuraanimada ah ama dhaqankan iska reer guuraanimada ah qayb uu ka yimid nomadic pastoralism markaynu la sheegaya waxa la dhahdaa waa nidaamkan ay reer miyigu meel ka guurayaan iyagoo xoolahooda inta badan la raadinaya calaf iyo biyo ama baad iyo biyo iyagoo la raadinaya marka nidaamkaasi waxa weeyaan nomadic pastoralismku
waa nidaamka ay reer guraagu neefkii un daba socdaan ay la raadinayaan neefka controlaya oo waxay la tegayaan oo kalba meeshii biyo iyo baadle marka nidaamkaas baa la yidhahdaa nidaamkaas ka reer guraanimada ah oo inagana aad inoogu badani qayb buu ka yahay inay reer meel ka guuraan oo ay meel kala degaan oo isla miigiyuune qodobka kale ku sii xiga waxa weeyaan bay keeni karaa inuu qofku meel miyiga ka guuraa mar reerku inuu meel miyiga ka guuro oo meel kala dego waxyaalaha keeni kara waxaa ka mid ah buying land and settle there iyagoo inta badan dad dhulka iibsada meel oo deetana u guuro oo kale waxyaalaha kale ee keeni kara in reer miyigu meel ka guuro oo ay meel kala degaan waxaa ka mid noqon kara isagana movement of public and private employee tusaale ahaan oo kale isku socodka shaqaalaha kuwa dowladda iyo kuwa gaarkaaba tusaale ahaan kale qofkii shaqaalaha meel baa laga bedeli karaa miyiga tusaale ahaan loo bedeli karaa meel kale sida macallimiintii oo kale degmooyin kale laga yaabo in la isdhaafiyo askartii oo kale shaqaalihii caafimaadka waxyaalahaas oo dhan oo dowladda u shaqeynaya institutionka dowladda ku jira ama tusaale ama private ba ha u shaqeeyo shirkadaha gaarka ahi shaqada ha u kala bedelaan sidaa markay tahay halkaas maxayn maanta casharkeenu marka maanta muxuu ka hadlayay maxaynu ka hadalnaa casharkeenu maanta wuxuu ka duulayay dhowr qodob qodobka koowaad waxaynu nidhi waxa loo yaqaano aynu ka hadlaynay internal migrationka oo ah socdaalka ay dadku dhex soconayaan magaalooyinka waddanka gudihiisa ee aanay ka baxayn waxaynu ka soo hadalnay sidoo kale typeska ama qaybaha kala duwan ee loo kala jijabiyo internal migrationka oo aynu afar ka soo sheegnay oo ay ka mid ahaayeen urban to urban migration iyo rural to rural migration iyo urban to rural migration iyo rural to urban migration sidoo kale waxaynu soo sheegnay ka koowaad oo aynu soo qaadanayna waxa uu ahaa urban to rural to urban migration oo ahaa in dad miyiga ka yimaadaan rularku ay soo guuraan oo ay magaalooyinka yimaadaan waxyaalaha sababa ayaynu soo sheegnay sidoo kale waxaynu ka hadalnay wax loo yaqaano rural to rural migrationka isagana waxaynu soo qaadanay sidoo kale wuxuu yahay iyo asbaabaha keena halkaasina casharkeena maanta ku hakin doonaa asalaamu calaykum